fanaaniintan Soomaaliyeed ee ka timid magaalada Hargeysa magaaladaas oo ah xaruntii fanka iyo sugaanta Soomaaliyeed ayaa gaarayo ilaa 4 fanaan fanaaniintaas oo kala ah Barwaaqo Qalanjo, Saalax Carab, Xamdi Qaali iyo Qaalid Kaamil. fanaaniinta ayaa doorbiday in ay ka qayb qaataan ololaha wacyigelinta bulshada iyaga oo barnaamijyo faneedyo ka sameyn doona magaalada Muqdisho. fanaaniintan ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in ay ka soo degaan caasimadda dalka ee Soomaaliya Muqdisho. wallahi dareenkayga wax soo qiyaas kara maaha sababtoo muddo badan ayaa aniga ahaan oo ku hamiyay mar inaan imaado ilaa 2015 alxamdulillah ilaahay baa qoray inaan 2019 aan imaado anoo nabad qaba alxamdulillah aniga asxaabteeda oo ka soo kicintanay ilaa Hargeysa. waxaan aad ugu faraxsanahay saaxiibkay Nimcaan oo 2015 ku dambeysay dib u kulannay Yacquub Saciid runtii aad iyo aad waxaan leeyahay reer Muqdisho wada joogda alxamdulillah. horta maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado Muqdisho insha Allah. waxaan ku yiri hadalkii waan wada joognaa reer Muqdisho waan u leeyahay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Muqdisho nimaadno oo ummadeedii Soomaaliyeed ay jecleen la joogno waqti la qaadano. aad baan idin salaamayaa wad idin aad baad ugu mahadsantiin soo dhaweynta quruxda badan ee noo sameeyeen. in badan waan ku hamiyay inaan mar uun Muqdisho caga soo dhigo maantana waan imay alxamdulillah rabbil caalamiin. aad baan u faraxsanahay wallahi dareenkayga dan cabdiraad aad baan ugu faraxsanahay maantinka caasimadda Soomaaliya Muqdisho. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaa soo dhaweynteedina. dhinaca kale agaasimaha howlgelinta hobolada Waaberi Nimcaan Xasan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac ayaa ugu mahadceliyay fanaaniintan dhalinyarada ah inay soo gaaraan magaalada Muqdisho isla markaasna ay muujiyeen sida loogu mideysan yahay fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. marka hore waxaan leeyahay horta saaxiibaday soo dhawaada mudaynu kala maqnayn oo ilaahay mahadi mar hadii aynu Muqdisho ku kulannay kulay Muqdisho wax cabsiya ha ka qabina. Muqdisho waa bad waxa weeyaan shacab goba ku nool insha Allah waxaan rajaynayaa in si fiican lii soo dhaweyn doono. anigu kan Nimcaan ahaan waan ku faraxsanahay maanta inay Muqdisho yimaadaan. run ahaantii Muqdisho waa magaalo aad iyo aad aan u jeclahay wixii wanaagsan aan la jeclahay inay asxaabteeda fanaaniinteeda yimaadaan aad baan ugu faraxsanahay. insha Allah waxaan rajaynayaa inay barnaamij fiican oo qiimo leh ay ku soo bandhigaan magaalada Muqdisho insha Allah oo kala shaqeyn doonaa. magaalada Muqdisho oo ay maalmahan ka socdeen fantaasiyo la xiriira toddobaadka xorriyadda Soomaaliyeed ayaa martigelineysay fanaaniin aad u fara badan. fanaaniintaas oo isugu jira kuwii hore kuwii dhexe iyo fanaaniinta dhalinyarada ee firfircoon dhanka fanka. Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho, xarunta dalka Soomaaliya.